waxaan aaminsanahay reer kastoo maanta barnaamijka qaataa 10 sano gudahood inuu maartay reerka uu faqriga kaga baxayo dhammaan dadka ka saarayo anu waxaan rajaynaynaa insha Allah sanad ama 2 sano kadib inaan la arag maartay cid zakad qaadata insha Allah ta'ala sidii maartay annagana qabsatay idima qabsanayso manhajkii waa la hayaa wadadii hadda la hayaa caqabadihii maartay la soo arkayna waa la hayaa iyagoo qoraal la hayaa marka waxaan rajaynayaa heeraha kale inay u fuudaanayso haddii la yiraahdo anigu halkan waxaan u istaagay inaan hadafka ka warramo sakada laga leeyahay hadafka sakada laga leeyahay waxa weeyaan in horta la soo nooleeyo fariidada ama rugniga saddexaad ee diinta islaamka ah in la soo nooleeyo marka rugni diinta ah la soo nooleeyo khayr badan baa la socda barakaad badan baa la socda kuwa samaawaadka iyo kuwa dhulka labadaba la helaya insha Allah ta'ala qodobka labaad waxa weeyaan in dadka fuqarada ah laga saaro leenka fuqarada ah oo noqdaan dad aqniyo ah oo saka bixiyaal ah معيارك إلهي النودقة تأخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وهو يبوشيقيا واحد كقادة كودة غنيقة واحد سيسا كودة فقراء قفك هدون نقضي زكاة بحية وغني إنه يسكى له وحق قفصدان مويه وقف غني يوم مارتي دي وحوليس يكوف الآنيان ولبا مركا زكاة بركات كذا لهلا إلهي سبحانه وتعالى رو وناقصان كيانو حوله دي وحويان لبجر مرئي لبجر ويدالان مركا كا أفرتك اللسي وحلاقي يوصانا كتامين تربو قادبا يادعا كارتا مركا إن دادكي اللي حوليو أو نقضان داد اسكو فلان أو ريره دو كفلان أو مارتي كورو سوكعا وهدف كالواد ويان haddii taa la helo maxaa dhacaya dadku waxay noqonayaan dad maartay isku xidhan fuqaradii iyo aqniyadii dad isku xidhan bay noqonayaan isjecel bay noqonayaan dad maartay ka wada shaqeeya maartay khayrka noqonayaan insha Allah ta'ala marka kaasina hadafka labaad weeyaan wali waxaan idin sheegayaa haddii la bilaabo hawsha sidii maartay annagana qabsatay idima qabsanayso manhajkii waa la hayaa wadadii hadda la hayaa caqabadihii maartay la soo arkayna waa la hayaa iyagoo qoraal la hayaa marka waxaan rajaynayaa heeraha kale inay u fuudaanayso haddii la yiraahdo aad ugu fuudaanayso waxaan aaminsanahay reer kastoo maanta barnaamijka qaataa 10 sano gudahood inuu maartay reerka uu faqriga kaga baxayo dhammaan dadka ka saarayo anu waxaan rajaynayaa insha Allah sanad ama 2 sano kadib inaan la arag maartay cid زكاة قاعدتها إن شاء الله تعالى مركا جزاكم الله خير هدفكم شركة لغة حويان إن مدحضة رقنك مارت يهرمودك قبل كستناك لقبو الريو إن برنامجك ينا إقاتان وقيب كنقدان سو نولين تالا سو نولين يرقنك إسلامك وقتك وعجيد ولو بدنا يسوقيسا